Dr. Cali Mucu Aweys oo toddobaadka sare caafimaad ka jeediya telefishinka Somali Cable ayaa ka hadlay raashinka ugu wanaagsan ee qofka Soomaaliya ku anfuri karo. Dr. Cali Mucu ayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqay marka anfurka la gaaro inaysan cunin cunno badan isla markaana aysan aad u cabin biyo badan oo qabow. markastaaba waxa cuntada ugu fiican oo la cuni karo. marka horta Ramadaanka waxaad ogaanaysaa maalinkaas oo dhan ayaad gaajeysan tahay. maqribkii markii la adimo Soomaalida waxay u badan tahay glass biyo horta qabow ugu dhufo oo caloosha ku shub. qabowga badan caloosha uu daran yahay, hal glass biyo dhan hadaad cabtidna caloosha uu daran yahay. maxaa loo baahan yahay? haddii aad cabayso biyo 2 ama 3 hambuuq kabo 3 kaliya, markaas kadib shaah ama wax la mid ah kuleel maaragtay haddii qaxwada aad cabto ama qaxwada oo timir aad ku cunto, markaas caloosha wax kulul ayaa u roon, wax qabowga uma roona, culays fara badanna uma roona. markaa kadib waxaad yeeli karaysaa shurbad xoogaa aan badnayn, lamaro baaquli dhan inta qabka siiso lamaro caloosha culays bay ku keenaysaa, taasna lama rabo. marka tartiib. marka Cabdiraxiin waxaan kuu sheegaa mataqaanaa dhulka muslimiinta dhan waaye, Soomaali kaliya maaha. habeenkii cunto oo dhan baa la keenayaa inta qab markaas ma la dhaqaaqi karo, finish waa fariisanaya. cudur dhan meeshuu ka imaanayo meeshaas, caloosha dhibaato ka qabsanaysa, beerka dhibaato ka qabsanaya. maxaa dhacay? meel maanta oo dhan ay waxba la'ayd hal mar aad ku shubeysaa oo dhibaato fara badan baa imaanaysa. marka waxaan leeyahay cuntada marka kow aad bilaabayso ama biyaha kow tartiib, hal saac kadib markii aad cunto yar ay caloosha gasho, caloosha ay aragto cuntooyin ay gasho, markaas biyo waa cabi karaysaa. weliba habeenkaas waxaa la rabaa ilaa 1 litir iyo bar oo biyo inaad cabto, sidii aad maalinka dambe jirkaaga aan biyaha aadan u baahnayn. waa in biyo badan cabtaa, laakiin biyaha maaha kow markaad afurayso, waa markii aad afurto kadib ka bacdi aad bilaabaysaa marba xoogaa ilaa saxuurta biyo markasta cabaysa. saasaa loo baahan yahay. Dr. Mucu ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu badan ee keena cudurka gaaska oo dadka Soomaaliyeed soonka inta badan ay aad uga cawdaan. markii la afuro mataqaanaa sambuuska soo qabso, burka soo qabso, timirta soo qabso, mashaarida soo qabso, bariiska soo qabso, hilibka soo qabso, mataqaanaa qaraha ku dar, cambahana ku dar. marka dadkii waxay cunayaan caloosha waxa ayna qaadi karin, caloosha culays badan baa la saarayaa. haddii culayskaas uu fuulo waxaa imaanaya ma aragtay caloosha inay jiitanto, gaaska inuu farabato, gaas fara badan inuu yimaado. marka gastritka kaasaa keenaya, xataa nabar uu keenaya, ulcer uu keenaya. gastritiskaas iyo ulcer duodeni iyo ulcer gastriti wax la dhaho ayuu keenaya. marka hadduu ulceradaas yimaadaan xanuun fara badan ku qabanaya, aadan cuntadana ka cuni karin, aadan gaajadana celin karin. marka dhibaatadaasaa ku imaanaysa. ugu dambeyntii Dr. Cali Mucu Aweys ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka feejignaadaan cudurka safmarka ah ee coronavirus oo weli dhibaato ku haya bulshada caalamka. marka waad arkaysaan COVID-19 wax wanaagsan maaha, waa cudur aad iyo aad u adag. Soomaalida meel kasta ay joogto waxaan leeyahay cudurkaas ha laga feejignaado. sidee baa loogu feejignaan karaa? afkaaga inaad ka xirato bahalkaas, in mar kastaba aad isticmaasho, afkaaga aad xirato waa marka ugu horeysa. marka labaad gacnahaaga inaad dhaqato, mar kastaba inaad mataqaanaa is ogaato. qaf hindhisaya ama qufacaya ama wax lamid ah haddii aad aragto inaad ka dheeraato. haddii bulshada isku imaanaysa meel la isku imaanayo oo 10 qof wixii ka badan isu imaata, laftigeeda waa khatar buu noqonayaa. weliba shan baa la leeyahay hadda waxaa soo baxay weliba mid la yidhaahdo COVID-19 oo 3 mutation cusub oo socda oo adduunka dhan hadda ku faafaya oo dhibaato fara badan ku haya. marka cudurkaas annaga wuu na soo gaaray, laftigeena wuu nagu jiraa. Kenya hadda dhibaato fara badan buu ku hayaa. marka waxaad arkaysaan Soomaali badan ayaa dhibaatadaas runtii maalin walba kala kulmaysa oo maalin walba u dhimanaysa. waxaan leeyahay Soomaaliya inta hadda caafimaadka qabtay nool, isbadbaadi. waxaad ku badbaadaysaa bulshadaas oo arooska ka mid ah, oo allabariga ka mid ah, oo laysku imaanayo ka fogaaw. haddii aad cudurkaas aad ku haleelo, sida ugu dhaqsaha badan dhakhtar u tag, sidii aad badbaad u hesho. ilaahay wax badbaadin kara, dawana ilaaha haya. in mataqaanaa cudurkaas aad ka badbaado hadduu ilaahay kaa badbaadiyo.
cudurkaas cudur fudud maaha ha laga taxadaro. cabdiraxiin caylaawe, Somali Cable, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier